qaar ka mid ah madaxda iyo shacabka Soomaalida ay ku nool waddanka South Africa ayaa si diiran oo farxad ku jirto soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon Saacid maraan maanta mikrofoonka TV-ga qaranka Soomaalida la dhaxmaraya waxa ay ka warbixiyeen dareenkooda farxadeed ayagoo hambaliyo dardaaran u diray ra'iisul wasaaraha cusub ee Dr. Saacid waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub ee loo magacaabay dawladda federaalka Soomaaliya Dr. Saacid aad baan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay waxa ku taal hawl balaaran ummadda Soomaaliyeedna aad ay ku sugaysaa wadanka dadka iyo dalka aduug iyo dadkuba aad ku sugaya waa maasantiin waxaan u hambalinaynaa ra'iisul wasaaraha cusub oo Soomaali Dr. Saacid waxaan rajaynaynaa annagana ilaahay idinkiisa inuu ilaahay oo garabkiisa galo oo xukuumadayna oo si fiican loo qabto waxaan baliyeenaa ra'iisul wasaaraha cusub Dr. Saacid waxaan ka rajaynaynaa guulo fiican iyo ra'iisul wasaare fiican oo dadkiisa iyo diintiisa inuu wax u qabto halka waxaan baliyeenaa ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Soomaaliya loo magacaabo waxaan ka rajaynaynaa inuu dadka wax u qabto guulo waxaan ka rajaynayaa waxaan ku noolaa dalka South Africa waxaan ku dhibaataysanaa inuu dhibkaas uga baxno ra'iisul wasaaraha hambal gacmo furan ra'iisul wasaaraha cusub iyo dhammaan dawladda cusub iyo baarlamaankooda oo aan ku meel gaarka ahayn waxaan ku soo dhaweeynaa gacmo furan hadaynu jaaliyada Soomaaliyeed ee South Africa hambalyo ayaanu leenahay hambalyo ayaanu leenahay ra'iisul wasaaraha cusubna waxaan u rajaynaynaa khayr iyo maartay barwaaqo iyo bashbash waxaad arkaysaan hortiina inuu ka muuqdo madaxweynihii Soomaaliya maalintii codku u dhacay halkaas aan ku dhajinnay ilaa iminkana sidoo kale nagu dhajinayay waxa arintaas muujinaysa waxa weey ummadda Soomaaliyeed inay aad iyo aad u doonayso ku faraxsan tahay meel kasta oo joogta garab taagan tahay maartay dawladda cusub si kastaba ahaatee tan iyo markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha cusub ayaa waxay si taraya hambaliyada shacabka Soomaaliyeed u dirayaan ra'iisul wasaaraha cusub Cabdillaahi Qorshe TV-ga qaranka Soomaaliya magaalada Cape Town waddanka South Africa